wuu helay meel ku habboon oo uu ku nasan karo, dameerkana xoogaa uu ku seetayn karo. Kadibna dameerkiisii ayuu ku dabray meel u dhow halka uu fadhiyo isagu. Wuxuu la soo baxay roodhi iyo cinib uu watay si uu u cuno. Wuxuu ku dulmiiray cinibkii roodhigii. Intii roodhigii iyo cinibkii isku qoyayeen ayuu geesaha yara eegay. Meesha uu joogo waa qabuuro wax nolol ah aysan ka jirin. Guryihii ku yaallay meesha ee xadaaraddii hore ahaa ee qadiimiga ahayd waxay noqdeen wax baaba'ay oo raad mooyaane wax kale aysan ka muuqan meesha. Qubuurahan dadka ku aasan tiro iyo cadad toonna midna ma lahan. Cusayr ayaa isweydiiyey su'aal noloshiisa oo dhan bedeli doonta. Cusayr ayaa naftiisa weydiiyey sidee macquul ku tahay in Ilaahay magaaladan baaba'day iyo guryahan baaba'ay iyo dadkan cadila'aanta ah ee lafaha noqday inuu soo nooleeyo. Dabcan sidaynu soo sheegnay wuxuu ahaa Cusayr shakhsi caabid ah oo Ilaahay yaqaan oo og in Ilaahay oo keliya la caabudo.